شيخ هذول دول انتربيق قبصو هس شيخ ما غش معنا هذول دول انتربيق قبصو هس ما تسوى هذول دول انتربيق قبصو هكون دق جدها سودي مرهرة سمية أني مرهرة سمية أني مرهرة سمية جد ما بهاي بمعك وسو ديبا جد كاد لوز معك ما waxaa ka dhacday abaar aad iyo aad u daran intee ka dhacday magaalada muqdisho abaar aad ilaahu ma keeno amiin abaar aad iyo aad u daran magaaladii waa tan kale Hargeysa aad u daran dadku ay aad u intaan xulu dhimanayaan waqtiga xulu waxaa ku casumay madaxweynaha xabiibu malaayiinka ah Rajab Tayyip Erdogan madaxweynaha waddanka Turkiga waa taqaanaa wuxuu ku soo dhiibay intaas oo kun oo bariis baasto biyo lacag wuxuu ku dhahay Sheekh Aruush Hargeysa ama magaalada muqdisho hal mid leh badbaadi shacab mataqaanaa xoolahooda iyo dadka hal mid leh hal midna ma samayn kartid okay waa soo qaaday ma toos baa Hargeysa iskugu shubaysaa mise toos baa iskugu shubaysaa magaalada muqdisho horta waxaa la dhahaa sadaqo sokeeye dhaaftay soomanaqataa la yiraa ana muqdisho hooyaday walaalahey dadkii dhanaa ku nool familkeyga ku nool macnaha markay xitaa soomaalinimo iyo muslimnimo iyo bini'aadanimo markii laga soo tago kuley haddee meel awaar ka dhacdana dadka dhan way saameynayaan indhahaygo isku xiran aan saan u soo wado horta muqdisho geey lahaa dug muqdisho aan ka ridi lahaa laakiin taa waxaa kasii jeclaa lahaa in Hargeysa iyo muqdisho waa dadkeygii in meelaha awaarta ka dhacday ina ana inta qaada Erdoganka ay sheegos malaayiin hebelka ay sheegos ina aniga u geeyna asag arshi aad ku haysaa marka Brexit Soomaaliya leena lagu siinaa hadda ma ku dibaca sabab alaahid waxa ka habsanahay dawlad leenta ka wadaaday leenta ka badal marro leenta waa galay toos okay su'aasha adiga qaabka ku weydiiyay qaabka uga jawaabta dadku way maqleenay ani waa i weydiisay qaabka u jawaabay dhageyso marka oo ku socaya Somaliland waxa aniga ka aaminsanahay waxna ma ku soo kordhinayso waxna ma ka naaqusinayso laakiin Somaliland waa wadan jiro oo madax banaan oo dawlad leh oo madaxweyne leh oo shacbiyad leh oo baasaboor leh oo lacag leh oo ciidan leh oo baarlamaan leh waay saas u jawaaba ninka Landheera oo su'aal ku dir baasaboor leeyahay magaca xagee lagu dhafaa waddanka lagu dhafaa meel walba adduunka arrinta lacagtaada meesha ku geyso South Africa lagu imaadaa okay caasimada Soomaaliya magaceed muqdisho maxaa iga keenay waxa ka keenay ma sheegi karo anigu Puntland iyo Somaliland ma isku leefala mise kala leefal waa iskuma dhow xitaa waa wadan iyo maamul goboleed waxa Somaliland ay dawlad ku yihiin oo ay Puntland ka maqan balafafani Somaliland qofka wuxuu uu sheegtay inaad uga leexatid oo ku ictiraaftid oo ku jeclaatid hore u sacdaadida dadnimo ah Somaliland iyada sheegatay inay wadan tahay baasaboor Somaliland oo dimuqraadina waa arkay baasaboor Somaliland caadina waa arkani okay Puntland iyo Khaatumo Masemba Khaatumo Taiwane Khaatumo state ma ka wada Khaatumo state ani gobolada ma kala aqaan Khaatumo state ma ka wada Khaatumo state kama wada Khaatumo ka wada Khaatumo bas taas deeqa waa taas fiiri Khaatumo ani gobolada ma kala aqaan wadanku wax baan oo yara ka soo tagay maamul goboleed ma ka wada okay macnaha Puntland iyo Khaatumo state masema
qaatumo state soo maamul goboleed maaha انت قلت لا may horta maamul goboleed soo maaha qaatumo state mis ma ahan ما ادري اوكي عاصمة بطولة المقعد garow miya garow يس اوكي عاصمة خاطوة مقعد soo qoray walaalayaalo soo qoray idinka dhiiqan geliya اوكي هذا قول ما كانوا عيب ما براذر خاطوة ما تقانا يس ارنو سؤال عيب كودي ما تقانا هاي واحد waxaan ku weydiiyey maamul goboleed miya qaatumo state maamul goboleed soo maaha حدي ما من قبل اساس كنا هنا براذر ودنك نحن كنا خاطومه يبنتلا مسما براذر اما خاطومه ما تقانا هذا يقول ما قش ولا ما قش adi macnaha caafimaadkii maa ku dhibo ani ما يسأل لي كيف انا ولا ما قش معناها واحد اقول sax waaye waxaan ku dhahay ani waddanka iyo gobolada iyo maamul goboleedyada iyo wixii ma kala aqaaniye qaatumo state gobol miya macnaha wax miya maamul goboleed oo taagan miya adaa lagaa rabaa aliga ma rabo sababta aad ku baratay puntland caasimadeeda aad ku baratay aad qaatumo garoweys maxay tahay hadda fiiri inta aqaanaa kuu sheegaa kismaayo mid ii sheeg jubbaland galmudug oo taqaanaa sug jubbaland koonfur galbeed labo galmudug oo taqaanaa hirshabelle oo taqaanaa hirshabelle sugay ay buubsiinin ay puntland ayo kuwa iga dhiman sug laascaanood ah maxaan ka tahay wa laascaanood tawa muku darsan karaa sool waaka dadka ii soo qorooyo sool xitaa waa ku jirtaa aqaani qofku wax ma aqaano doo ku dhaan ma aqaani waayo laakiin haddee dhiiqa ii dhacda video apologizelink soo daba dhiibaa maxaa waa soo xifdinaa ma taqaanaa gada state ha gada state waa ka saa waa dhankan wuxuu ku taalaa ii sheeg ii sheeg meeshaan oo axmed islaam uu ka taliya agtiisa eriyadaas waay yaa madaxweyne u ah madaxweyne ma lahan be meeshaas see ma kula baaqanaa marka may laakiin meeshay ku taala ayaan oo ciidanka lagu daar ciidanaa la geenaa layaa maqlaymo iyo diyaaradaa la geeyaa macnaha gedo ma aha dowlad goboleed just waa magaalo ama waa gedo macnaha waxaa lahaa sida adigu waa gobol oo kale gobol gedo waa gobol yee hoos tagtaa marka intee hoos tagtaa markaa mise garowe waxaa hoos tagtaa balad xaawo waxay hoos tagtaa garbahaarey waxay hoos tagtaa luuqgaane maya waxaan ka wadaa iyada intee laga maamulaa iyada waxaa laga maamulaa iyada jubbaland ha axmed islaam meeshiisa laga maamulaa ma waa ogahay seeba lan leh laakiin de macnaha dhihin waa saas oo kale jubbaland maa laga maamulaa maento adi su-aal maku weydiiyaa si toosa gurceel ma kasee gurceel waa kasaa galmudug waa galmudug intee uga sii taalaa gurceel de dhusmaree bowdhooda iyo mataqaanaa bowdhooda maxaa iyo cadaado maxaa cadaad iyo madaxweyne u cadaada madaxweyne malan cadaada waa caasimad galmuduga madaxweyne oo dheh yaa waa dheh yaa u hay dheh ninka nin iga khatarsan wayse wah qoorqoor nin dhaho baa wah hay sheekh abrone ma kasee sheekh abrone youtube qaarka mid meesha wuxuu dhooyaa raaligelin bixi puntland waa dowlad maaha maamul goboleed waayo okay caasimadda labaad ee soomaaliya magaceeda baydhabo waaye maya khalad waa dambiya sheekhow qabri waxaa ku sugaya 2 mitira janno iyo cadaab sugaysaa adoo anaga dhanayna sugay labaad ee soomaaliya inay tahay hargeysa waa beent u sheegaysaa sheekhow miyaad dambi ka cabsanaya
أنا ما كدقي مركان داي مش أسواي منو قوي thank you باي منو يا أنا ما كدقي مركان داي Soomaalida oo dhan og inay tahay adoo qir adigoo aruush markay dhacdaawo waa kuwaanina oo aan ku weydiiyo caasimad la Soomaaliland waa burco waxa isla yaa sheekh been badanaa muxuu ka waanina runta sheeg xataa ha noqoto dowladda wala ha noqoto Soomaaliland dowladda ha ahaato laakiin right now markii la is weydiiyo caasimad la Soomaaliya waa hargeysa horta fiiri caliyow wixii ku saabsan qaala tacaala iyo qaala rasuulullah wixii ku saabsan cilmi uma lihi bas aan iiga filan jawaab ahaan oo ku fahmay la sacaan waddanka ku taala suge wixii intaa ka soo baxsan hargeysa dheer iyo kismaayo gaaban iyo Soomaaliya toosan iyo Kenya dheerne waxa iiga filan maba aqaan inaan ku dhomogto okay la sacaan waddanka ku taala la sacaanooda Soomaaliya way maxaa Soomaaliya kanta las caanood waxay ku taalaa dhankan Boosaaso iyo kor meeshaas dhankaas kor ay jirtaa booso xageeda maya kor ma las caanood sooli meelahaas ku taalaa sooli sanaagi meelahaas ku taalaa waadan baa saaq furan dheh dhanka waqooyi Somaliland aan ka wadaa ha wasacanta tumo yaa u madaxweyne yaa madaxweyne ka dadka dhooyin Morgan محمد فارح علي مورغان madaxweynuhu ka yaabdhaan okay shiikhow waxaan ku weydiinayaa maragkan waxay tahay madaxweynaha federaalka ummadda Soomaaliyeed madaxweyne xasan sheekh iyo Muuse Biixi right now yaa taajirsan labada maanta والله أرد تاجر نمذج واحد قال لكن أنا حاسس الشيخ محمود تاجر صنع إسلامي أنا إسلامي وافكر هذا نو افكر هذا ما أنا إسلامي يعني تاجر نمذج ما أعرف مو اوكي بالإنسان هذا يسوق قصة يا بنتلان يا سوماليلان يا يقانا dadka soo dhaweynta xagga mataqaanaa shacabka qof la soo dhaweynayo yaa gobku ah markii Soomaaliya laga soo tago wax kasta oo compare lagu sameeyo Somaliland ku fiican dhan kasta dhaqaale soo dhaweyn kala dambeyn jinni buu wax dhan Somaliland ku fiican markii shiikhow markan waxaan ku weydiinayaa okay madaxweyne dani mid oo taqaana ma aha بسم الله سي وكسين ديجي دوح وابتيجي وابه ما شاء الله لا ابتيجي بها ابتيجي بها ما شاء الله شو مدحوين الدني إياه مدحوين سي اسمه نكاح دايان مسبيحي حدين كله حنلين أدقو شيخ أروشة سوق لقل منك يا سوق رجل لاعب والله ويل أبتيجي زال ده مركل لو إمادان هني مدحوين ميان أبتيجي له ويل أبتيجيس وويل أبتيجي زوال هذا شنو لين بقى جلسة ما كان جلسة سكيل على بريف يصدق ورا الجينا هذا ثيري هذه هرجيساني دقيقاني واحد يلود هرجيس دتك وحش ما يموت دتك وحش ما يسوي وحش ما يعني أو ضبع عسير وشيخ محل حر ضبع عسير شيخ ما آيا كده وحرر ويدري ويا قبطوي ولا تجبي يمكن متقنا قاديك أو قاديك قادك يا لعنين أصلا قلوا قال وده معاه أوي ثيري إن كل نفس لما عليها حافظ متقنا نف والبو ملقا إيد دول تاجن أو حفظنا أو وحي قاعدة شيء وحي سميس أركي اسمه كل نفس بما كسبت رهين مو نف والبو حي إيد كسبتي قعمت كوه الشيء ونا لقى عوال مرنا مو أدوين قف كل حرو قف كل حسدو قف كل دباتي الدنيا امتحان لو جوا لكن نف والبو وحي إيد أي كسبته أنه مرة محمد مسمعها وصح مقدسية إسكاله ما قبيل سومالي هان سأدو فانت سؤال شو الجواب مقدسوها اسكاله شعب سوماليات
haddii aan ku qancina waa ka jawaabi karaa ma ku qancday ما يساعدوا فانتو كجواب كده ما هو aniga saasaan dhahay laakiin